وقصدني لما قاعد بحضي جعيل كسر يا مال حلقدني لباد هذا مقال كلاك ده channel kana soo subscribe karay waxay noo maraysay maalmo kadib kulankii ugu horeeyay hodan qalbigeeda kama go'in waxay mar walba xasuusanaysay hadalladii xigmadda lahaa ee Ibrahim markii ay subaxdii soo toostay maskaxdeeda hal fikir ayaa ku jiray waxayna islahayd maanta maktabadda ma aadaa mise waa iska dhaaftaa waxay ogaatay in qalbigeedu rabo in mar kale wiilkaas la kulmo ugu dambeyn waxay go'aansantay inay aado maktabadda inta ay wadada ku sii socotay hodan waxay dareemaysay dareen cusub dareen aysan horay u aqoon waxay nafteeda ku tiri maxaan uga fikirayaa wiil aan maalmo ka hor la kulmay laakiin qalbiga mararka qaar ma fahmo xeerarka maskaxda markii ay maktabadda gashay indhaheedu waxay markiiba raadiyeen hal qof kaas oo ah Ibrahim wuu joogay wuxuuna fadhiyay miiska uu mar walba fadhiisan jiray buug ayuu gacanta ku hayay hal mar ayuu madaxiisa kor u qaaday indhihiisuna waxay qabteen hodan labadooduba si lama filaan ah ayay u dhoola cadeeyeen waxay ahayd dhoola cadeyn yar laakiin qalbigooda wax badan ayaa ka guuxayay hodan ayaa u dhowaatay miiska waxayna tiri waxaad u muuqataa inaad maktabaddan aad u jeceshahay Ibrahim oo qoslaya ayaa yiri qofka saboolka saaxiibkiisa ugu fiican waa buugga hodan ayaa la yaabtay hadalkaas waxayna ku tiri sabool miyaa tiri Ibrahim ayaa si degan u yiri haa anigu waxaan ka mid ahay dadka saboolka ah hodan waxay aragtay in wiilkani uusan ka xishoonayn xaaladiisa taas oo ah inuu yahay faqiir wuxuu si cad u sheegayaa xaqiiqda noloshiisa Ibrahim ayaa markaas yiri saboolnimadu ma aha wax qofka qiimihiisa ka dhima waxa qofka qiimihiisu dhintaa marka uu riyooyinkiisa ka quusto hodan ayaa si qoto dheer u dhageysanaysay waxayna dareentay in hadalladiisu yihiin kuwa qalbiga ka imaanaya hodan ayaa markaas weydiisay maxaa ku ah riyadaada ugu weyn Ibrahim ayaa aamusay dhowr ilbiriqsi wuxuuna yiri waxaan rabaa inaan noqdo nin wax bartay oo wax ka bedela nolosha qoyskiisa waxaan rabaa in hooyaday mar uun ay nasato hadalkaas ayaa hodan qalbigeeda si qoto dheer u taabtay hodan waxay ogaatay in uu wiilkan ka duwan yahay raggii ay horay u taqaanay rag badan oo ay aragtay waxay ku faani jireen lacag laakiin Ibrahim wuxuu ku faanayaa run iyo riyo waxay nafteeda ku tiri runtii ninkan wax gaar ah ayuu leeyahay markii ay maktabadda ka baxeen waxay go'aansadeen inay socod yar ku maraan beerta magaalada beertu waxay ahayd meel ay dad badan ku nastaan caruur ayaa ciyaaraysay dad waayeel ah ayaa kursiga ku fadhiyay qorraxdu si tartiib ah ayay u dhacaysay hodan iyo Ibrahim waxay ku socdeen waddo dheer oo geeda leh intii ay socdeen Ibrahim ayaa yiri dad badan waxay u maleynayaan in lacagtu tahay waxa ugu muhiimsan nolosha laakiin lacagtu waxay keentaa raaxo ee ma keento farxad hodan ayaa yaabtay waxay tiri sidee u ogaatay adigoo sabool ah Ibrahim ayaa qoslay wuxuuna yiri saboolku wuxuu si fiican u arkaa waxa run ahaantii qiimaha leh maalintaas kadib hodan iyo Ibrahim waxay bilaabeen inay marar badan kulmaan mar maktabadda marna beerta mararka qaar waxay wada fadhiisan jireen saacado iyagoo ka hadlaya nolosha jacayl tartiib ah ayaa qalbiyadooda ku soo dhacayay laakiin midkoodna si cad uma sheegan karin hodan weli ma aysan sheegin runta nolosheeda ma aysan sheegin in aabaheed yahay ganacsade weyn ma aysan sheegin in qoyskeedu aad taajir u yihiin waxay ka baqaysaa in haddii uu ogaado wax walba ay isbedelaan dhanka kale Ibrahim sidoo kale wuxuu dareemayay dareen cusub laakiin qalbigiisa waxaa ku jiray shaki wuxuuna naftiisa ku yiri gabadhan waxay u muuqataa mid nolol fiican ka timid ma habboona inaan qalbigayga ku xiro qof aanan la mid ahayn laakiin qalbiga mararka qaar ma dhageysto caqliga maalin markay beerta fadhiyeen aamusnaan yar ayaa dhex martay Ibrahim ayaa yiri hodan mararka qaar waxaan dareemaa in kulankeenna uusan ahayn mid caadi ah hodan ayaa waxay dareentay in qalbigeedu si degdeg ah u garaacmayo laakiin iyagoo aan ogeyn ayaa noloshu waxay u diyaarinaysaa caqabado waaweyn jacaylkooda weli waa bilow waxaan hor yaalla laba caqabadood oo aan fududayn kow qoys diidi doona jacaylkooda labo farqi dhaqaale oo labadooda u dhaxeeya maxaa yeelay qofna waa taajir qofna waa faqiir laakiin hal su'aal ayaa taagan taas oo ah jacaylku ma ka xoog badnaan doonaa lacagta